سيدنا محمد وزيرك أمنية إيجار عليه هذا نيرا هذا قاشان رجع أيوة مدبنا بواحد شو قاشان رجع بركة واحد سرك عرب كانوا كعيلين مركا ما عايجو ومحمد علي حجا وزير دولة عصبة وزارة أمنية وجيدا نهار فردي أنت بدن وضد عن السنغال وعن صوب الشقينة أنا شخصيا واحد مرخاتك أها عمري والحمد لله يسيي إن عن سوق جارو وقتي دولة نمدي صوماليا وحن ما أنت أدو فرح سنة هاي إن بعضي أذهردي أن شو أنا جابها بوليس بوها اللهم نحرسته marka farxad gaara ayay maanta ii tahay in wasaaradii abahay ka tirsanaa aan maanta madax ka noqdo oo aan intano saraakiila oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeedna aan maanta horteeda joogo shakhsiyan anu waxaan marxaati ka ahaa oo inta saani sheegay cimrigu siiyay soo gaadhidii dawladnimadii Soomaaliyeed iyo burburkii oo 91 ilaa hadda aan ku noolahay magaalada madaxda Muqdisho marka waxa ii muuqata stabiska iyo jaranjarooyinka iyo sida xaaladba ay ahayd ee aanu soo marnay qolkan aan ku shirayno waxa igu dambeysay anigoo wasiir dawlaha gaashaandhiga waqtigii xukuumadii Cabdiweli oo baarlamaanka ay nimankii argagixisadii soo galeen oo uu ahaa halkan operation roomkii ra'iisul wasaaraha iyo wasiirkii ay yimaadeen oo aan kala soconay daaqadan inta laga saarayo muxuu ahaa baarlamaanka xaaladda maalinta ku sugnaa iyo xaaladda maalinta uu ku sugan yahay waxa u dhaxeeya wax aad u weyn maalinta meel iska burbursan oo ilaahay xalkeeda ogii buu ahaa maanta quruxdan ka muuqata iyo saraakiishan buuxisay waxay muujinaysaa waxqabadka ay ciidamada boolisku qabteen markii aan hadda daawanayay presentationkii iyo waxa ii soo baxay in dawladnimada Soomaaliyeed ay kaamilta laakiin hal shay uu ka maqan yahay halka shay ka maqan waxa weyn inaga ayaa waxaan aaminsanayn inaynu dalkeena ku filana waxa sheeko laga sheekiyay nin dibadda ka yimid wiilkiisu u yimid hotel Jasiira 5 saac markii ahayd buu ku yiri waa magaaladu way xunta waa xilli dambe waan sii tagayaa nabadgelyo halkeed ka timid buu ku yiri tawfiiq maxaad wadataa gaariga kula socda keligii oo tawfiiqna waa tagaysaa ha amni la ma jirtay adigu iimaansiino inay muxuu ahaa inuu amnigu jiro marka waxaan u baahanahay horta inaynu inagu iska dhaadhicino maskaxiyan inaynu amnigii dalka gacanta ku hayno kula finaana sababtoo ah waxaas oo qayb iyo sectors oo dhisan ee la soo dhisay basic dawladnimo iyo ciidan dhamaantiin waa haysanaa laakiin duruuf way jirtaa maanta shalay siday ahayd iyo berri siday noqonayso aad bay u kala duwanaanaysaa marka inaynu duruuftana ku samirno muxuu ahaa qalbiyadeena geliyay iimaankeena aan gelino inaynu dalkii inagu leenahay amnigiisina gacanta ku haysano waxay naga dhimanayaan imika aan jirin koos maanta qaraxyadii xaalad hotel hebel baa la galay maalin kale hadana maanta la galay xildhibaan baa la dilay dhagihiinu ma maqlaan imika ilaahay ka sokoon waxa suuro geliyay idinka anigu wasaaradda intaan joogo kullu yani wasiirku waxaan ni ballan qaadanay inaan xiriir dhow la yeelano wixii baahiye ee wasaaradda ka dhimana aan isugu geeyno waqtigeyga sidii aanu u keeni lahayn meeshii rabtaha nala gashay hadii ay dawladda tahay ay meel kale oo dibadda ay tahayba inaanu dhamaystirno baahiyaha yar ee dhiman hal shayna cid inaga aqbali mayso inagoo ciida intaas oo tira ah intaas oo aqoon ciidana haysana in wiil qaawan oo qori ah kala ordaya oo inuu naftiisa dilo oo dalkeena sida uu dhigo oo u yeelon raali ka ahaano daawanana cid inaga yeelmayso inaguna iska yeelimayna markaas waxaynu xoogeena iyo gacmaheena aan isku geeyno amniga sidii aynu wax uga bedelaan anigu golaha wasiiradan fadhii jiray amniga marka laga hadlayo ma rabo in ay amaan ama xumaan midna ma ahayn laakiin xaalad la taagan yahay kulba ayaa la sheegay waxay ahayd in la yiraahdo intay joornaalada qoraan ama idaacadu sheegan madiina intaas lagu dilay intaas dhaawacantay miina dhacday miina amniga kama amni istiraatiijiyad ka ballaaran kaas ayaa loo baahay inta waxa sheegay wariyaasha oo dhacdooyinka maalin walba dhacayo ku jira laakiin hadda waxayna loo baahan yahay anagoo kaashanayna shacabkeena inaynu la nimaadno inagoo isku duuban istiraatiijiyad ka duwan tii hore xamarna 90% nabadgelyo
deedii aan gacanta ugu dhigi lahayn shacabka Soomaaliyeed diyaar bay u yihiin inay nala qayb qaataan madaxweynaha iyo xukuumadda aan ka tirsanayn wasiirkuna priority madaxweynaha doodii muxuu ahaa wada maqlaysan barnaamijkiisa ugu horeeyay wuxuu yiri 1 2 3 intaba amniba ah marka waxaan ku soo gabagabeyn la hadalkeena annagoo isku duuban aanu diyaar garoono sidii amniga dalka aynu uga bedeli lahayn amni wuu jira abni ma jira hawran amni wuu jira oo waa soconaa oo fiican laakiin sidii xaaladan aan uga sii wanaagsanaan lahayn halkaan mid taagan lahayn meel ka sareysan aan u gaarsiin lahayn inagoo wada jirna taasanu diyaar garoono ma sanad